ayada iyo qoyskeeda Saakay waxay u ahayd subax qurux badan. qofka kale uu bariidiyay hubsadayna in uu caafimaad iyo nabadgelyo ku jiro. tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadaan ayayna si gaar ah u dareemayaan farxadda, maadaama maalmahan ay yihiin maalmo uu sareeyo dareenka farxadeed ee muslimiinta muddada soo soomanaa bisha barakaysan ee Ramadaan. si gaar ah qoysku waxay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidda ee fooda ugu soo haysa. kaliya hadal haynta qoyska ka jirta waxay ahayd sidii loo heli lahaa dharkii lagu ciidsiin lahaa carruurta iyo sidoo kale adeegyada kale ee guriga looga baahan yahay maalmaha ciidda si loo weyneeyo munaasabadan lagu sagootinayo bisha barakaysan ee Ramadaan. ha yeeshee dhammaan farxaddaas oo idil waxaa u beddeshay maanta qaraarka geerida, halka xubnaha qoyskana ay u soo hargashay murugo ballaaran. qofka aan ka hadlaynaa waa Allaha u naxariistay walaasheen oo ah gabar Soomaaliyeed Raakhiya Faarax oo gacan ka xaq daran ay ku toogatay maanta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland ee gobolka Bari. xilli ay ku guda jirtay nolol maalmeedkeeda caadiga ah isla markaana ay dhex mushaaxaysay magaalada Boosaaso. sida la sheegay, nin cabto ah ama isticmaalay maanduuriyaal ayaa rasaas si arxan darro ah ooda kaga qaaday Raakhiyo iyo ilmo yar oo wiil ah oo ay gacanta ka haysay walaalkeedna. halkaasna waxaa ku asiibtay isla markaana kula soo diristay geerida oo murugo iyo xanuun badan ku abuurtay qalbiyada dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee gabadhan aadka u garanayay iyo qoyska ay ka dhalatay intaba. Raakhiya waxay caan ka ahayd barta bulshada ee TikTok loo yaqaano, halkaas oo ay ku xirnaayeen kumanaan dad ah kuwaas oo si joogto ah ula soconayay muuqaalada iyo sidoo kale madadaalada ama entertainmentiga ay ku soo bandhigto ee ay ku maaweelinaysay bulshada Soomaaliyeed ee ku xirnayd. waxay ahayd maalin aan murugada noocan oo kale ah aan la filanaynin qoyska reer Faarax, isla markaana aan marnaba xaaladan oo kale qofnaba unan ku fikirayn, maadaama xubnaha qoysku ay subaxnimadii hore ee saaka ay isbareediyeen isla markaana ay xaqiiqsadeen in aynan jirin ama uusan jirin qof ku jira xaalad la filan karo murugo noocan oo kale ah. waxaa sidoo kale loo diyaar garoobayay oo kaliya sidii loo weyneyn lahaa maalmaha farxadda ee fooda ugu soo haya. waa tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadaan. aanu u ducayno walaasheen Raakhiyo ee gacanta ka xaqdaran maanta ay ku toogatay magaalada Boosaaso. maalmahan waxay muslimiintu u duceeyaan midkooda xanuunsan iyo kooda geeridu ay haleeshay si Allah naxariistiisa uu kaga waraabiyo. ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland ayaa ku howlan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen shaqsigii ka dambeeyay dilkan loo geystay Raakhiya iyo wiilka yar ee ay waday. qaar ka tirsan saraakiisha hay'adaha ammaanka ee Puntland ayaana sheegay inay ka go'an tahay inay cadaaladda horgeeyaan ninka dhibaatadan geystay, isla markaana gacan ku dhiiglaha dilay Raakhiyo Faarax iyo ilmaha yar ee gacanta haysay. qoyska ayayna u soo jeediyeen saraakiishu inay isdejiyaan isla markaana ay ka warsugaan dadaalada socda ee hay'adda booliska oo ay gacanta ku hayso. daawade, haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkan Sharmaaka Media, ku xirnoo mar walba. nabadgelyo.